waxay soo socotay qabanqaabadiisu muddo 4 bilood ah waxaana ka soo qayb galay 400 oo qof oo ka kala socday dawlado, ganacsato, aqoon-yahano, diblomaasiyiin iyo qaybaha bulshada. shirweynaha maalgashiga Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ku dhawaaqay qabashadiisa wax yar kadib ismihii xukuumadda waxa uu qayb ka yahay dadaalada dawladdu ugu jirto horumarinta ganacsiga iyo abuurista fursado shaqo si loo helo koboc dhaqaale iyo xasilooni waarta. shirweynuhu wuxuu ka koobnaa soo jeedino khayraadka Puntland, khudbado, dood cilmiyeedyo, shirar duceedyo iyo bandhig carwo oo ganacsato ku soo bandhigeen khayraadka dalka. waxaa xusud mudan in shirweynaha ay ka soo qayb galeen ganacsato gaaraysa 300 oo kala matalaya ilaa 130 shirkadood oo isugu jira ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sida Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Ethiopia, Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, China, Italia, iyo Mareykanka, India iyo Slovakia. ujeedooyinka guud ee shirku wuxuu ahaa soo bandhigista khayraadka Puntland iyo fursadaha maalgashi si loo soo jiito maalgashi toos ah oo keena koboc dhaqaale iyo shaqo abuur. shirku waxaa kale oo uu lahaa ujeedooyin ay ka mid yihiin isku xirka ganacsatada gudaha iyo ganacsatada isaga kala imaaday daafaha caalamka, ufududeynta wax walba oo u baahan yihiin shirkadaha Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah ee danaynaya maalgashiga Puntland, dhafagurka fursadaha maalgashiga ee ka jira Puntland iyo caqabadaha imaan kara oo ay si gooni ah u falanqeeyeen aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah ee ka qayb galay dood cilmiyeedyada. waxyaabaha ka soo baxay shirka waxaa ka mid ah soo jeedino, falanqeyno iyo dood cilmiyeedyo. kadib waxaa shirka ka soo baxay arrimaha soo socda. kow, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ee raba inay maalgashadaan Puntland iyaga oo dawladdu u samayn doonto fududeyn walba oo ay u baahdaan. labo, dawladdu waxay dhaqan gelinaysaa xeerka maalgashiga Puntland ee dhowaan la ansixiyey kaas oo wax weyn ka tari doona fududeynta maalgashiga tooska ah iyo ilaalinta hantida iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. dawladda Puntland waxay si gooni ah u dhiirigelinaysaa hirgelinta warshado wax soo saar, iskuulo farsamo iyada oo garabgal dhow la samayn doonta ama loo samayn doono hirgelintooda. shirka waxaa looga dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo laga hirgelin doono Puntland sida furista xarumaha shirkadaha Hyundai, Toyota, dhismaha xarumo badbaadinta bii'adda greenhouse, dhismaha boqolaal guryo ah oo real estate ah, maalgelino loo samaynayo dadka hal-abuurka ganacsiga leh gaar ahaan dhalinyarada, dhismaha macad marso iyo suuq kalluumaysi iyo maalgashiyo la xidhiidha macdanta beeraha iyo teknolojiyada iyo biyaha. qodobka shanaad, maalgashiyada ay ku dhawaaqeen ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ee shirweynaha ka soo qayb galay waxa uu qiimo ahaan gaaraya 100 milyan oo laga hirgelin doono dhowrka sano ee soo socda. taasi waxay wax weyn ka tari doontaa koboca dhaqaalaha guud iyo shaqo abuurka ay helaan dhalinyarada reer Puntland, iyadoo la filayo in kumanaan dhalinyaro ah ay ka faa'iideysan doonaan bilaha iyo sanadaha soo socda. qodobka lixaad, waxaa sii socon doona shirar daba jooga shirweynahan oo ka dhici doona gudaha Puntland iyo dibadda si wadaxaajoojyada u dhexeeya dowladda iyo ganacsatada uu u noqdo mid sii madhara oo aan ku koobnayn shirweynahan keliya. qodobka toddobaad, magaalada Boosaaso waxaa lagu qaban doonaa carwo ganacsi oo ganacsatada kusoo bandhigi doonaan alaabahooda iyo adeegyada ay hayaan xilliga qaboobaha ah, iyadoo aan filayno in insha Allah madaxweynuhu si faahfaahsan uga hadli doono arrintaas. gunaadkii ugu dambeyn waxaa loo mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirweynaha gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ee isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka. waxaan rajaynaynaa in maalgashiga aad ku samaysaan Puntland uu wax badan ka tari doono guud ahaan kobaca dhaqaalaha Puntland, shaqo abuurka dhalinyarada, xoojinta xasiloonida Puntland iyo sidoo kale kobaca iyo horumarka ganacsiga dadka wax maalgashadana ay faa'iido badan ka heli doonaan. waxaan si gooni ah uga mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada
iyo shirkadii hay-adihii ka qayb qaatay qabsoomidda shirweynaha maalgashi. waxaan rajaynayaa inaad sanadka dambe isugu iman doono caafimaad iyo barwaaqo iyo shirweynaha labaad ee maalgashiga puntland.